Assalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo ka joogtiin dunida iyo daafeeda. Magacaygu waa Axmed Faarax halkaan nagala socotiina waa Himila Media Production sidoo kale Himila High School. Saaxiibayaal ku soo dhawaada casharkii toddobaad ee Premiere Pro. Casharkeena toddobaad ee Premiere Pro waxaan ku baran doonaa sidee fiidiyogaada loogu soo daraa qoraalka looga bedelaa kalarka, sidoo kale sida qoraalkaaga looga dhigaa mid sameynaya transition ama animation u taqaaniinba oo hadba dhinac u soconaya haddii uu mid kor eeda ahaalahay mid hoos eeda u ahaalahay ama right iyo left labada dhinac mid uu doono uu bixi lahay. Sidoo kale waxaan baran doonaa muuqaal kasta marka la soo gabagabeynayo waxa aragtay intro u dambeeyo ee la yiraahdo thank you for you ama thank you for watching ay ku qoran tahay ee lagu soo qoro muuqaal kasta dhamaadkiisa. Haddaba saaxiibayaal muuqaalkeena maanta intaas ayaan ku baran doonaa bal ila arag marka hore qaybtan yarta ee sameeyay kadibna sida loo sameeyo ayaan isla aadi doonaa. Hagaag waxaad u jeedaa hadda muuqaalkan bilowgiisa Himila Media Production way socotaa sidoo kale ugu dambeyn waxay soo istaagaysaa muuqaalka dhexdiisa halkaas ayay ku dhamaanaysaa. Halkan waxaa u jeedaa waxaa soo galay waxa la yiraahdo subscribe now sidoo kale marka ayadana play iraado way ugu soo dhawaanaysaa oo zoom in ay noqon doontaa. Hagaag ugu dambeynna waxaa soo geli doona thank you mahadsanid laakiin thank you da ugu dambaysteeda ayadu waxa muhiimadda ay noo xambaarsan waxay tahay qaabka ay ku baxayso waxaad u jeedaa waxay sameynaysaa inay kala wareegto ayay sameynaysaa. haddaba saaxiibayaal qaabkaas sida loo sameeyo oo muuqaalka qoraal dhaqdhaqaaqa loogu soo daro ayaynu maanta baran doonaa. Hagaag saaxiibayaal ugu horreyn marka waxaan sameyn doonaa hadda Premiere Pro markii aan soo furno waxaan soo geli doonaa ugu horreyn muuqaalka maanta aynu soo geli doono oo aan baraatka ku qaadan doono oo muuqaalkan ay ku qoran tahay technology background muuqaal ku qoran tahay asaga ayaa ku soo gelinaa meeshan kadibna markaa muuqaalkan soo gelina haddii aad rabto muuqaalka inuu dhaladan kore ama source monitor kaaga soo muuqdo double click ayaa siinaysaa muuqaalka haddii kale waxaa samayn kartaa inaad muuqaalka ku jiida oo halkan kasoo muujida ayaa samayn kartaa. Waxaa soo jiidi doonaa muuqaalka oo qaybtan timeline ayaa muuqaalka keeni doonaa qaybtan timeline markaa muuqaalka keeno markaa maanta waxaa rabaa muuqaalkayga inaan ku soo daro qoraallo weliba qoraalladaas aan u sameeyo wax la yiraahdo animation oo inay dhaqaaqaan ah booskay joogaan ka dhaqaaqaan boos kale iyada. Saddex qodob ayaa maanta baran doonaa. qodobkeena koowaad waxaan ku baran doonaa sidee meesha qoraal loo soo gashaa. qodobka labaad waxaan ku baran doonaa sidee qoraalka kalarka iyo size-ka looga bedelaa. qodobka saddexaad waxaan ku baran doonaa sidee qoraalka loogu sameeyo animation iyo waxyaabo. haddaba saaxiibayaal ugu horreyn si aad qoraalka usoo gelino halkan ayaad marka hore tegaysaa markii halkaas aad tagtid waxaa samayn kartaa inaad taabatid xarafka T ayaa taaban kartaa oo waa shortcut-ka lagu soo gelsho waxaa la yiraahdaa writing-ka marka aad wax qoraysid oo muuqaal ama sawir wax ku dhex qoraysid xarafka T haddii aad taabatid qalinka hadda waxaa ujeedaa wuxuu diyaar u yahay inuu wax qoro oo muuskiisa isku bedelay waad ujeedaa ama waxaa samayn kartaa inaad soo gasho halkan tooliska oo aad ka dooratid xarafka T inaad ka doorato xarafka T aad kusoo dhufid haddii aadan ka dooran muuqaalka dhexdiisa loo joogo haddii aad taabatid xarafka T waxaa ujeedaa meeshaan say isku bedeshay markii aan T ku dhufanana sida isku bedelay ayadana waa ujeedaa. ugu horreyn halkaas ayaad tegaysaa kadibna halkan ayaan waxaan rabnaa inaan ku qorno maanta qoraalkeena koowaad waxa uu ku saabsan yahay. haddaba qoraalkeena koowaad annaga waxaan qori doonaa meeshaan welcome ayaan ku qori doonaa oo wixii hore wax ka bedelan inaan sameeyo ayaan isku dayi doonaa. halkan waxaan ku qori doonaa marka hore welcome ayaan ku qori doonaa. Hagaag welcome markaan meeshan ku qoray waxaan rabaa marka koowaad inaan welcome-ta size-keeda aan soo weynaysto ayaan rabaa sidoo kale waxaan rabaa inaan kalarka ka bedelo si aad welcome size-keeda usoo weynaystid muuqaalka waxaad ka saartaa waxa la yiraahdo selection tool-ka ka saar qoraalka markaa selection tool ka saartid soo jiid welcome kadibna geeskan keen halkan markaa keen derbigan soo qabo ee soo jiid waxaa sameeydaa sidaas u weynay oo shaashada sidaas kula soo ekaysi halkan bartanka ayaa markaa keensan doona inta markaa sameeyay hadda markaa waxaan u baahanahay inaan welcome wax ka bedelno haddii aad size-ki haddii aad farta inaan capital ka dhigno ama small aan ka dhigno iyo wixii la mid ah sidoo kale waxaan rabaa inaan color ka bedelo si haddaba qoraalka aan wax kasta uga bedelo waxaan sameyn doonaa marka hore qoraalka ayaan double click sii doonaa qoraalka markaa double click sii waxaan ku dhufan doonaa labadaas falaarood kadibna waxaan kasii dooranaa halkan ay ku qoran tahay effective controls marka dhufto waxaa ujeedaa meeshaan waxba hadda email yaallaan hadda qoraalkii aniga waxaa shaqada aan qaban rabo waxaan rabaa qaybtaan la yiraahdo source monitor-ka inay iga soo muuqato laakiin waxaa ujeedaa hadda waxba kama ay muuqdaan si marka aan meeshaan wax iga soo muuqdaan waxaan sameyn doonaa click ayaan waxaa sii doonaa qoraalka markaan click siiyo ama aan doorto halkan ayaa waxa iga soo muuqan doona shaqada aan maanta qaban doono. Hagaag haddaba saaxiibayaal ugu horreyn waxaan rabaa welcome-ta meeshaan igu qoran inaan qariyo ayaan rabaa haddaba se welcome-ka u qari karaa waa su-aasha welcome haddii aad rabtid inaad qaridid halkan ay ku qoran tahay tagasti horteeda waxaa ujeedaa inay ku qoran tahay welcome haddii marka aan rabo ishaas ayaan ku dhufan doonaa inaan qariyo hadda waxaa ujeedaa welcome way qarsoontay haddii aan rabo soo kale inaan soo bandhigana ishaas ayaan wax ka qaadi doonaa calaamadii aan saaray waaya waxaan rabaa ugu horreyn markaa welcome kalarkeeda inaan bedelo si haddaba welcome kalarkeeda aan u bedelo waxaa iska xiri doonaa filaartan ay leedahay tagasta oo leeyahay iska xiri doonaa kadibna hoos ayaan u socon doonaa halkan waxyaabo badan ayaa ka bedeli karaysaa farta inaad capital ka dhigtid inaad small ka dhigtid inaad farta bold ka dhigtid italic iyo wax la mid inaad ka dhigtid inaad kalar ka bedeshid iyo sidoo kale inaad stroke saartid intaba waa ku samayn doonaa
ugu horreyn waxaan samayn doonaa balorta farta inaan ka bedelo kalarka ay leedahay inaan ka bedelo si markaa farta aad wax ugu bedeshid markasta ha hilmaamin inaad control a tiraadid oo select garayid sababtoo haddii aadan select garaynin waxba kama bedeli karaysid marka waxaad samaysaa markii aad farta u select garaysid kadib waxaa ku dhuftaa halkaas ay ku qoran tahay fail failda markaa ku dhufatid waxaa kasoo doortaa meeshaan kalarka aad fartaada ka dhigaysa kalarka markaas adiga ku qarxiyo kasoo dooro maadaama haddaan markaa cashirka aan boobsiinaa kalaradan mid kamid a ayaan soo dooran doonaa laakiin adigu hadhowti midka adiga ku qanciyo ayaa soo dooranaysa kadib markaa kalarka soo dooratid waxaa leedahay okay kadib bal aynu fiirino kalarkii inuu isbedelay iyo in kale aynu fiirino waxaa ujeedaa hadda welcome siday noqoto waa ujeedaa sidoo kale welcome waxaan rabaa inaan stroke gelsho ayaan rabaa oo geesahan ah cadaad kasoo gelsho haddii aan rabo markaa inaan stroke gelsho waxaan ku dhufan doonaa halkan stroke ay ku qoranta ayaan jeegta saari doonaa hadda markii aan jeegta ka qaado waxaa ujeedaa markaan jeegta saaro geesaha cadaada kasoo gela haddii aan ka qaadana cadaadku uu ka baxa markaa jeegtaas ayaan saari doonaa haddii aan rabo marka strogan inaan kordhiyo halkan ayaan tagaa kadibna waxaa wadi doonaa dhinaca rigtka ama midigta ayaan wadi doonaa waxaa ujeedaa saaxiibyaal stroga inuu meeshaan kusoo batay ayaan ujeedaa waxaa rabaa markaa fartan inaan ka dhigo capital sidoo kale inaan ka dhigo small haddii aad rabtid markaa farta inaan ka dhigtid capital ama aad rabtid inaan ka dhigtid small qaybtan kor ayaa u soconaysaa meeshaan ay ku qoran tahay tt da tirada badan meesha ay ku qoran tahay labadan t oo waaweyn isla socda markaad dusha istaagtid waxaa ujeedaa all capital in lagu yiraahdo hagaag ayada ayaad ku dhufanaysaa waxaa ujeedaa dhammaan farti waxaa laga dhigay capital ama far weyn ayaa laga dhigay halkan ku xigto haddii aan tagana waxaa la yidhahday fartaada waxay iskugu jiri doontaa qayb small iyo qayb capital ayay iskugu jiri doontaa ayada ayaan ku dhufanaa waxaa ujeedaa welcome u horeydo waa capital ida ku xigto waa capital elta ku xigtana waa capital hagaag waxaad ujeedaa markaa hadda guud ahaantiisa qoraalkan wuxuu ka kooban yahay capital iyo small ayuu ka kooban yahay marka tan waxay ku cadaynaysaa wixii aad markaas rabtid ayaad adigu kasoo dooranaysaa oo aad qoraalkaaga ka dhigi doontaa ani hadda waxaan samayn doonaa markaa in qoraalka aan halkaas u deysto sidoo kale waxaan rabaa farteeda inaan ka dhigo bold italic regular iyo midii markaas aad rabtid waxaa samayn doontaa si aad halkaas wax ugu bedesho waxaa soo furi doontaa halkan ay ku qoran tahay bold and italic ani hadda farteeda waxay ii dooran bold and italic ayaa ii dooran haddii aan rabo bold clear ayaan ku dhufanaa hadda markaa bold clear doorto farteeda waxaa ujeedaa italic ayaa ka baxay sidoo kale bold ayay noqotay far butuc ayay noqotay hagaag haddii aan rabo farkaan martaa inaan soo weynayo oo lasoo ekaysiyo screenka computerka haddii aan rabo inaan lasoo ekaysiyo halkan ayaad ku dhufan doontaa oo qaybtan ayaad wadi doontaa qaybtan markaa sidaan u wadid waxaa ujeedaa qoraalkaagii wuu soo weynaanaa oo wuu zoom in ayuu noqonaa oo qoraalka aad ayuu kugu soo dhawaanaa haddaba waxaan samayn doonaa marka qaybtan haddii aad rabtid ayadana waad iska yaray kartaa oo qaybtan muuqaalka qoraalka waa ka weynay kartaa waana ka yaray kartaa waa meesha markasta aad qoraalkaaga sayskiisa ka sixi doontid waayahay hadda intaas waxaa kusoo baranay sida qoraalka sayskiisa loo soco sida kalarka looga bedelo iyo sida stroga loo saaro haddaba saaxiibyaal intaas waxay ahayd qaybtii koowaad ee aan ku baranaynay sida muuqaalka tagasti loogu soo daray sida wax looga bedelo waxaan rabaa markaa tagastigan inaan ka bedelo haddeertaan wuu taagan yahay tagastigan uma dhaqaaqayo hadaa maanta muuqaalkayga bele yiraahdo waxaa ujeedaa tagastiga wuu taagan yahay wax dhaqaaqa ma samaynayo waxaan rabaa markaa qoraalkan inuu dhaqaaq sameeyo ugu horreyn waxaan baran doonaa wax la yirahdo position waxaa ku xiji doonaa wax la yirahdo scale ugu dambeyn waxaan baran doonaa wax la yirahdo rotation qoraalkeennay annaga ama muuqaalka qaybtiisa hore waxaan kusoo aragnay in position uu sameynayo qoraalka uu dhaqaaqayay hadba dhinac ka dhaqaaqo oo dhinac kale aadayo haddaba markaa qaybtan welcome ayaa waxaan ku samayn doonaa position ama waxaa la yirahdo inay dhaqaaqdo dhinac ka dhaqaaqdo dhinac kale aado afarta dhinac ay mid u dhaqaaqi kartaa inay kor aado inay hoos aado ama labada dhinac inay midkood aado midig iyo bidix tay doontaba haddaba saaxiibyaal aniga waxaan samayn doonaa qoraalkayga maanta waa dhaqaaji doonaa si qoraalka u dhaqaajiyo waxaan rabaa ani inaan position ku sameeyo qoraalka markasta asaga select garay qoraalka markaa select gareed kadibna halkan ay kugu qoran tahay text welcome ayaa ku dhufanaysaa qaybtan hoose ayaa soo furaysaa waxaa ka dooranaysaa halkan ay kugu qoran tahay position ayaa ka dooranaysaa positionta markaa soo dooratid qalin markuu halkaas qalinkan aad soo jiidid meeshii aad rabtid aad geysid kadibna waxaa saari doontaa checkta ayaa position saari doontaa halkaas waxaa ujeedaa waxaa lagu abuuray frame position la yiraahdo ayaa halkaas lagu abuuray si markaa positionkan aad midig iyo bidix midii aad rabtid aad ugu wadid qaybtan ayaad qabanaysaa kadibna waad jiidaysaa oo waxaa leedahay positionka ama qoraalka halii dhaqaaji qoraalka hadda wuu soo dhaqaaqay wuxuu usoo dhaqaaqay dhinaca raydka ayuu usoo dhaqaaqay ama dhinacaan bidix ayuu usoo dhaqaaqay qoraalkaaga marka halkaas oo mara oo xarafkaas e ay sii dhamaaneen waa joojinay waxaa imaanay positionka labaad ayaad abuuraysaa oo halkan ayaa imaanaysaa kadibna waxaad taabanaysaa qoraalkii mar kale ayaad soo qabanaysaa waxaa leedahay dhinacan qoraalka halaygu soo hoos halaygu soo wado halkaas markuu mara waxaad soo wadaysaa adana qalinka mar kale ayaad soo wadaysaa position kale ayaad abuuraysaa waxaa leedahay qoraalka maadaama hadda hoos lagu waday markaan waxaa u baahanahay in qoraalkayga dib lagu soo celiso qaybtan ayaa qabanaysa oo waxaa leedahay qoraalkii dib ha lagu soo celiso asagoo hoos ka yimaaday korkor ha lagu soo wado leedahay screenka ha lagu soo celiso waa sidii aynu kusoo aragnay muuqaalkii horeeta haddaba saaxiibyaal intaas markaa sameeyey kadibna waxaa leedahay ii jooji shaqada qalinkan waxaa geli doontaa qaybtan bilaaga ayaa geli doontaa kadibna waxaa leedahay videogaada belay oo waxaa dhigi doontaa qoraalka qaabka u sameeyey animationka itus ayaa leedahay hagaag waxaa ujeedaa qoraalka hadda wuxuu u baxay red ayuu u baxay
xarafka e markay sii dhamaanay haddana way soo noqonay oo waxay u aaday hoos ayay ku noqonaysaa sida meeshan kaaga muuqato kadibna qoraalka wuxuu usoo noqon doonaa dib ayuu usoo noqon doonaa marka adigu waxaan hadda sameynaa wax ka qurux badan markasta inaad sameydid isku day hadda marka waxaan sameynay qaabka ah inuu qoraalkii dhaqaaqo qaab ah ayaan hadda sameynay waxaan rabaa marka dhaqaaqan waan garanay inaan u gudbo qaybta labaad oo la yidhaha iskaal iskaal waxaa la yidhahdaa qoraalku inuu kaa noqdo zoom out oo qoraalka uu kaa sii baxo iyo inuu kuu noqdo zoom in oo qoraalka kugu soo dhawaado labadaas midii aad rabtid ayaad ku samayn kartaa si markaa taas aan u sameyno qoraalka waxaan ka saari doonaa positionkii hore ayaan qoraalka ka saari doonaa waxaad samayn doontaa markaa si aad layer cusub u abuurtid ama iskaal cusub u abuurtid qaybtan ayaad u wadi doontaa iskaalka halkaas marka aad marsiinay kadibna waxaad ku samayn doontaa in aad soo dooratid waxa la yiraahdo inaad soo dooratid halkii uu ka bilaaban lahaa iskaalkaaga iskaal marka imaano kadibna waxaan samayn doonaa inaan hadda qoraalka aan dhaqaajino qoraalka halkan ayaa wadi doonaa kadib waxaa leeyahay qoraalka markuu halkaas maraa jooji halkan ayaa wadaan soo dhaqaajina waxaa leeyahay qoraalka halkaas markuu maraana dib u soo celi oo shaashada qoraalka kusoo buuxi ayaan dhihi doonaa hadda marka waxaa leeyahay balay ayaan leeyahay bal sida qoraalkayga u dhaco ayaan arki doonaa hagaag waxaa ujeedaa hadda qoraalkii markaa wax iskaal la yiraa oo qurxoon ayuu sameynaa inuu dib u degay ugu dambaystina oo qoraalka halkaas ku dhammaaday marka waxaad samayn kartaa sidoo kale dib u degitaanka aadan rabin hore waad usoo wadi kartaa oo awal hore maadaama aan u wadna right lefti ayaad wadi doontaa qaybta iskaalka markaad dooratid waxaad wadaysaa qoraalkaaga dhinacan leftiga ayaad usoo wadaysaa oo waxaad leedahay markasta dhinacan leftiga qoraalka ha laygu soo wado ayaa dhihi doontaa ma dhihi doonta dhinaca right-ka ha laygu waday adiga ayay markaa kugu xiran tahay qaabka aad iskaalka u rabtid markasta adiga ayaa xakameyn kara oo dhinaca adigu dooratid ayaad wax wadaysaa mar kale beli ayaan leenahay si aad ila aragtid qoraalku uu weyn yahay waxaa ujeedaa hal mar ayuu hoos u degaa haddana mar kale ayuu hoos usii degaa oo qoraalku sidaas ayuu ku dhammaana agaag hal mar waxaa ujeedaa ayuu hoos u degay kadibna mar kale ayuu kusii xijinaa hoos ayuu qoraalku kusii dhammaana saaxiibayaal halkaas waxaa ugu soo gudubnay sida loo sameeyo waxa la yidhaha positionka iyo iskaalka waxaan rabaa qaybta xigta inaan u gudbo oo ku bari doono waxa la yidhahdo rotation rotation waxaa la yidhahdaa qoraalka markii uu dhammaanaa in uu sameeyo animation sida inuu qoraalku kala wareego kale inuu sameeyo si haddaa marka aan rotation u sameeyo waxaan abuuran doonaa text cusub ayaan abuuran doonaa xarafka t ayaan soo daawan doonaa ama select tool ayaa wax kasoo dooran doontaa xarafka la yidhahdo t kadibna waxaan samayn doonaa halkan waxaan qori doonaa thanks markaan ku qoro kadibna waxaan samayn doonaa thanks ayaa waxaa u sameyn animation u gaara ayaan u samayn doonaa thanks markaan ku qoro kadibna waxaan samayn doonaa ugu horreyn waxaan thanks ka saari doonaa stroke wax ka saari doonaa color u gaarana waa u samaysan doonaa hoos qaybtan ayaan soo furaa text ay noogu qoran tahay kadibna hoos ayaan u soconaa waxaa meeshaan kasoo sixi doonaa thanks colorka ay yeelanayso markaa si aad markasta ayadoo wax uga bedeshid sida aan hore usoo baranaba qoraalka select garay adoo qoraalka select garayna waxba kama bedeli kartid strogan waxaa dhahaynaa horta zero ayaan ka dhigi doonaa oo 1.0 ayaa stroke ka dhigaynaa kadibna waxaan soo dooran doonaa colorka ayaan soo dooranaynaa white ayaan aniga soo dooranaa adigana wixii aad rabtid soo dooro sababtoo ah aniga hadda wax loo jeedi karo ayaan rabaa oo ila arki kartiin hagaag waxaa ujeedaa hadda marka thanks sidaas ayay maaragtay inoogu samaysan tahay kalarkeedina inoogu samaysan inaan soo weynayo shaashada lasoo ekaysiiyo ayaan rabaa laba weyba waan samayn karaa inta halkaan tago aan soo jiido qoraalka markaan keeno shaashada dhexdeeda kadibna aan geesaha qoraalka gees ka mida qabto aan saan oo kale aan u jiido waan samayn karaa sidoo kale waxaan samayn karaa in aan halkaan ka xakameeyo halkaan inaan ku qoran tahay bold horteeda inaan filaartan ama bidix u wada ama midig u wado haddii hadda aan midig u wado waxaa ujeedaa qoraalka wuu soo weynaanaa haddii aan bidix u wadana oo sii yaraana marka adiga dhinaci aad rabta ayaa ka xukumi kartaa sidoo kale screenkaaga computerkaaga inaad ka xukuntidna waad awoodaa oo qabatid muuska aa hadba dhinac wada halkaas ayaa geysan doonaa centerka kadibna waxaan rabaa inaan qoraalkan ku sameeyo waxa la yiraahdo rotation markaas si ugu sameeyo thanks ayaan soo furi doonaa filaartan oo thanks ayaan soo furi doonaa kadibna waxaan dooran doonaa waxa la yiraahdo rotation ayaan dooran doonaa halkan waxaan ku dooranaa rotation markii aan doorto waxaa leeyahay rotationka lagu sameynaa waa nuucee rotationka lagu sameynaa marka waa soo door kartaa adigu waxaad dhigi kartaa qoraalka markuu baxa midig ha u wareego asagoo kale wareega midig xaggeeda ha u dhamaado dhigi kartaa bidix xaggeeda ha u dhamaado dhigi kartaa marka adiga ayuu markasta ku xiran yahay dooqo halkaas markii aad qalinka soo jiidid aad keentid halkan qalinka markaa keentid kadibna waxaad samayn doontaa inaad rotationkan aad usoo wadi size-ka saas dhinacaan oo kale aad tiraahdo ha laygu dhameeyo qoraalkayga inaad tirahdid sidoo kale waxaad samayn kartaa inaad tirahdid bidix ha laygu dhameeyana waa samayn kartaa halkaas tusaalehaan aniga halkaas markuu qoraalka ii maraa waxaan dhihi doonaa markuu size qoraalkaas ku toosiyo halkaas ayaan waxaan ku ekay doonaa frameka koowaad ee thanks kala wareegiisa okay waxaan abuuran doonaa frame labaad oo ah in qoraalku oo u dhamaado qaab bidixa inuu u dhamaado frame labaad oo ah ayaan abuuran karaa halkan ayaa imaana halkan markaa imaado kadibna waxaan leeyahay maadaama hadda aan usoo socona marka hore right haddana waxaan dhihi doonaa waxaan u soconaa lefti ayaan dhihi doonaa ama bidix ayaan u socon doonaa oo qoraalka waasoo kala wareeji doonaa kadibna qoraalkan sidaa u kala wareejid inta qoraalku kaaga toosaa waad wadaysaa qoraalka markuu sidaan kuugu tooso waxaad samayn doontaa inaad tiraadid maaragtay apply ama aad tiraad bal shaqada qabatay tus inaad tiraad okay hadda waxaan dhihi doonaa markaa saankii shaqada ay qabatay intay leeg tahay oo horreyn muuqaalka ayaan soo bilaabi doonaa
iskaalka ayuu samayn doonaa oo aan kusoo baranay si loo sameeyo qoraalka inuu zoom out ama zoom in uu sameeyo. ugu dambeyn waxaan arki doonaa sida saankiska ay u samaynayso waxa la yidhahdo rotation. muuqaalka ayaan waxaan leeyahay play. hadda waxaa ujeedaa welcome way sii yaraanaysaa ugu dambeysna sidaas ayay ku dhamaan doontaa. saanka sida kusoo gasho waa ujeedaa, sida ku baxdana waad ujeedaa. marka adu waxaa markastaa gacantaada bartaa waxa aan samaynayno wax ka qurux badan inaad sameeyid oo markastaa annaga waxaa kutusaynaa wixii wadada aad u mari lahayd, laakiinse adigu waxaad samaydaa wado qurxoon ama wado toosan inaad u martid. saaxiibayaal muuqaalkana maanta intaas ayuu ku egyahay. haddii ay jirto wax su-aalo oo muuqaalkan ka qabtay qaybta hoose commentiga inagula wadaag. haddii ay tahay markuu horeyso muuqaalku soo gaara muuqaalka leegsaar sina sheer garay si asxaab badan uga faa'iidaystaan. waxaan kaaga mahad celinayaa daawashada quruxda badan. tani intaa ka gaari doona muuqaalkan muuqaalka xig waa dhammaantiin idin leh isma dhaaf.